الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halkani waa YouTube channelka Aamina Macalin. meel walba ay joogtaan, qofkii ay habeen u tahay, qofkii ay maalin u tahay, qofkii ay subax u tahay, waxaa idin leeyahay Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkani. fadlan muuqaalka la gareey, sidoo kale subscribe noo saar please. furo gambaleelka si barnaamijyada kaleeto ay kuu soo gaaraan haddii ilaahay idmo. waad ku mahadsantaa wixii fikrada ah qaybta hoose ee commentiga noogu reeba. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan suxuurta iyo waxyaabaha ku habboon. caadiyan sidaa ognahay dadka waxay sameeyaan qaladaadyo badan marka la gaaro xilliga suxuurta. inta badan dadka waxay isticmaalaan raashin culculus, raashin ay ku badan tahay milixda ama sokorta ama dufanka iyo saliidda sidaa u taqaanaa. haddaba suxuurtu waa saad uu qofku u qaadanayo maalinta soo socota ee uu soomi lahaa si uu uga helo tamarta uu jirka u baahan yahay. suxuurtu waa sahayda uu qofku ku soomi lahaa saacadaha maalintii ee soo aadan marka laga reebo xilligaas uu suxuuranayo. haddaba sidaasi daraadeed maxaa wanaagsan qofka suxuuranaya in uu sameeyo? mowduuceena maanta waxaan uga hadlaynaa waa maxay qamadi. maxaase u taqaanaa qamadi ama sareen? marka aad maqasho magaca qamadi ama sareen, waxaa durbadiiba kugu soo dhacaya ama aada xusuusanaysaa waxa la dhaho cambuulo oo ay Soomaalidu u samaystaan qamadiga. magaca cambuulo waa qayb ka mid ah raashinka ama miraha wadankeena oo la isku dardaray oo la sameeyay. tusaale, qamadi iyo digir ayay dadka inta badan isku daraan oo ay isku kariyaan. qaab cunisna saliid iyo sokor intay ku daraan badankood ayay cunaan, halka qaarka kalena ay caano ku daraan. haddaba maxaad u taqaanaa qamadiga in suxuur ahaan loo cuno? waa maxay faa'iidada uu jirka u leeyahay? haddaba qamadiga waa miro ka mid a miraha ka soo baxa dalkeena amaba sareen sida aa u taqaanid. wuxuu ka mid yahay raashinka diirka leh ee la isticmaalo. kalarkiisu waa cadaan amaba cadeys sida aad u taqaanid. wuxuu u kala baxaa isaga oo qolof leh oo sidii beerta uga soo baxay ah, iyo isagoon qolof lahayn oo la xanshiriyey amaba la tumay oo qoloftii laga saaray. qamadigu wuxuu jirkeena u leeyahay faa'iido badan oo xagga caafimaadka ku saabsan. faa'iidada qamadiga uu leeyahay waxaa ka mid ah isagoo qofka siinaya laasatiibo amaba caloosha u jilcinayo. maadooyinka qamadiga oo hodanka ku yahay waxaa ka mid ah calool jilcinta. sidoo kale waxyaabaha jirka u baahan yihiin qamadiga ku jiro fiberka iyo calciumta. maadada oo jirka muhiimka u ah oo qamadiga ku jirta ayaa waxaa ka mid ah potassiumka iyo fiberta ayuu qaniga ku yahay qamadiga. waxyaabaha dadka ee suxuur ahaan u isticmaalaan waxaa ka mid ah bariis lagu kariyo suugo, baasto suugo leh, muufo, canjeelo, waxyaabo cusbada ku badan tahay, wax dufanka oo ku badan yahay, hilib oo kale. uma wanaagsano suxuurta wax culus in loo isticmaalo. iyadoo ay suxuurtu tahay sunnooyinka sunno ka mid ah ayaa haddana waxaa wanaagsan in la khafiifiyo. maadaama suxuurta la dib dhigay afurkana lasoo hormariyey, ayaa waxay ku wanaagsan tahay waxyaabo caafimaadka qofka u fiican inuu isticmaalo. maxaa yeelay xilliga suxuurta la cunayo waa xilli habeen ah. waa xilli qofka inta badan intuu wax cuno uu seexanayo sida dadka qaar ay sameeyaan. raashinka aan soo sheegnay ee dufanka leh ee carbohydrate-ka ku badan yahay ee dadka suxuur ahaan u isticmaalaan waxay keenaan xaraad tiro badan oo jirka ku imaanaya maalinta qofka uu sooman yahay. markii uu qofku ku suxuurto baasto iyo suugo wax la mid ah oo kale, wuu oomayaa qofka. tamarta jirkana 6 saacadood wixii ka dambeeya waa ay yaraanaysaa. marka aan eegno raashinka ku wanaagsan suxuurta ee suxuur ahaan ee qofka u cuni kara ayuu kow ka yahay
midka maanta miiska noo saaran ee ah sarreenka amaba qamadiga. qamadiga haddaba qaabab kala duwan ayaa loo sameeyaa amaba loo diyaariyaa. qamadiga ayaa waxaa lagu cuni karaa waxa la dhaho khudradda la kariyey amaba maraq, sida qudaarta oo kale, koostada oo kaleeto, hilibka cad sida malayga ama digaaga oo kale, qudaarta wadankeena oo la isku habeeyey sida bocorka, kaarootada, baamiyaha, yaanyo sawarsaanta oo la isku daray ayaa qamadiga lagu cuni karaa. haddaba maxay tahay sababta aysan dadkeena ugu baraarugsaneen cuntooyinka ugu faa'iidada badan xagga caafimaadka ee yaala wadanka in aysan farsameynin? inta badan bulshada ayaa waxay iskaga dadayataa caadooyin soo jireen ah oo dadkii inaga horeeyay ay isticmaali jireen, halka adduunka maanta wax walbo la tijaabinayo. qamadiga ayaa waxaad ka helaysaa in caloosha uu kuu qaboojinayo, isla mar ahaantaana uu kaa difaacaya haraadkii aad ka dareemi lahayd markii aad cunto baasto iyo suugo ama bariis iyo suugo iyo wixii la mid ah. qamadiga ayaa wuxuu ku siinayaa nashaadaad xagga caloosha ah, in dheefshiidka uu u fududaanayo shaqadiisii caloosha ku aadaneed amaba diyaarinta howlaha dheefshiidka. haddaba qamadigu wuxuu ku jiraa raashinka ugu wanaagsan xagga miisaan ridinta ama dietka. qamadiga ayaa waxaa ku jira raashinka loo isticmaalo dietka, dadka yacni miisaanka dejinaya. sidoo kale dadka xanuunada sokorta qabana aad ayuu ugu fiican yahay qamadiga inay isticmaalaan, maxaa yeelay dhammaan shaqadii jirka ayuu koontaroolayaa insha allah. haddaba waxyaabaha kale ee suxuurta ku wanaagsan waxaa ka mid ah qudaarta, sida miraha qudaarta sida babayga oo kale, cambaha oo kale, muuska oo kale, kaarootadii oo la habeeyey oo kale, bocor cadaha oo kale, batiiqa, bidijaanka, qajaarka, salarka ama qudaarta cagaaran ee fitamiinada jirka uu ka helayo. sidoo kale waxaa wanaagsan in la isticmaalo waxyaabaha mineraalka ama biyaha uu jirka u baahan yahay. inta badan suxuurta waxaa fiican in qofku uu cabo biyo badan si markaaseeti uu qofka uusan maalintiisa haraad u dareemin. waxyaabo badan oo suxuurta ku wanaagsan ayaa jira, sida shurabaadka laga sameeyo khudradda, hilibka cad oo lagu daray shurabaadkana aad ayuu ugu wanaagsan yahay qudaarta. sidoo kale waxyaabaha suxuurta ku wanaagsan waxaa ka mid ah raashin isku dheelitiran in qofka uu cuno, sida qamadi lagu daray qudaar la kariyey, miraha furuudka, mineraalka qofka uu cabo isagoo ka fogaanaya waxyaabaha dufanka iyo acid kale, waxyaabaha dufan kale, waxyaabaha cabitaanada acid kale, kuwa kafiinka in qofka suxuur ahaan uu isticmaalo. sidoo kale waxaa wanaagsan dadka xanuunada qaar qaba in ay dhakhtarka inta badan kala tashtaan cuntooyinka ay suxuur ahaan u isticmaalayaan. sidoo kale hooyada uurka leh waxaa u wanaagsan xilliga suxuurta inay ku suxuurato hilibka cad iyo ukunta, malayga, digaaga oo kale, biyaha cadna ee aada u badsato sababtoo ah mineraalka jirka ayuu u fiican yahay. biyaha cadna waxaa ku jirta macdantii uu jirka u baahnaa. khaasatan qamadiga hooyada uurka leh aad ayuu ugu fiican yahay in ay suxuur ahaan u isticmaasho xilliga ramadaanka. waa raashin diir leh, waa raashin ka soo baxa wadankeena, isla mar ahaantaana waa raashin ku wanaagsan haddii ay noqoto wax cunis dhanka caafimaadka. sidaasi daraaddeed ayaa bulshada waxaa leenahay waa in aad ku baraarugtaan marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan, xilliga suxuurta raashinka aad suxuur ahaan u cunaysaan in aad in badan ka fakartaan, maxaa yeelay waa shayga kaliya ee ugu muhiimsan ee tamarta jirka uu ku shaqeyn lahaa maalintaas uu ka helayo suxuurta. halka aad dhibaato kala kulmayso markii aad cunto raashin dufanka amaba milixda ay ku badan tahay amaba sokorta aad suxuur ahaan u isticmaashid, iyadoo khilaaf xagga caloosha ah uu qofku ku imaanayo, iyadoo qofku dibiro uu keenayo, waxyaabihii dufanka amaba dhanaankii oo qofku kusoo rogmanaya, culays xagga maalintii oo qofku ku imaanayo markii uu suxuurta iska badiyo, lablabo uu qofkii dareemayo,
madax xanuun oo qofka lasoo darsayo. waxaana wanaagsan cuntada suxuurtu inay ahaato mid khafiif ah, isku dheelitiran, caafimaadka u wanaagsan, biyahana ay u badan yihiin. daawadayaal mawduuceena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. asxaabteyda qiimaha iyo qaayaale waxaa idin leeyahay soo dhawaada ramadaan kariim. youtube-ka laag hala saaro. asxaab aad oo mahadsantihiin dhiirigelintiina iyo sida wanaagsan aad iila socotiin. inta barnaamij midkan lamid aan ku kulmi doono waa Aamino Macalin oo idin leh ramadaan kariim, nabadgelyo.